ismaqal iyo daawasho wanaagsan saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan halkan waa channelka dabagalka wararka 23 bisha 8 sanadka 2022 qodobada ugu waaweyn warkeenana waxaa kamid ah kacdoon ka dhana madaxweynaha Jubbaland oo lagu dhawaaqay farmaajo iyo beeshiisa oo qorsheynaya in Axmed Madoobe xukunka laga tuuro Cabdirashiid Janan waxa uu si cad u sheegay in Axmed Madoobe ay banaanka ka dhigayaan Jubbaland madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Jubbaland saaxiib dhowna la aha Axmed Madoobe oo ka mid noqday siyaasiyiinta miisaanka leh ee ku hor yimid qorshihii muddo kororsiga ahaa ee loo sameeyay xukuumadda iyo baarlamaanka Jubbaland Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame waxa uu shaaca ka qaaday in dibadbaxyada ka socda Sri Lanka iyo Sierra Leone ay Soomaaliya ku soo socdaan maxaa diiradda lagu saaraya shirka bambaxa ee golaha wasiirada maanta kaga furmay Muqdisho iyo sidee laba walaalo ah iyo gabar uu shukansada mid ka mid ah ay u qorsheeyeen dilka wasiirkii cadaaladda Koonfur Galbeed intaasi saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu dorkaroon warka channelka dabagalka wararka oo aad ku cusubtahay channelkan ku soo biro subscribe sar muuqaalka like sar share gareeyo la wadaag saaxiibada aad ku maasan tahay inaad ka mid tahay saaxiibada dhaweey channelkan haatan warkiyo fidsan kacdoon ka dhana Axmed Madoobe ayaa lagu dhawaaqay farmaajo iyo beeshiisuba waxay qorsheynayaan in madaxweynaha Jubbaland xukunka ay ka tuuraan madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa si weyn kaga hor yimid muddo kororsiga baarlamaanka oo Jubbaland uu sameeyay xukuumadda iyo baarlamaanka Farmaajo oo dagaal xooggan la galay Axmed Madoobe intii xukunka uu joogay ayaa haatan hormuud u noqonaya abaabulka beeshiisa ay ku doonayso in gabi ahaanba ay ku qaadacdo in Axmed Madoobe muddada loo kordhiyo ila wareedyo muhiim ah ayaa warbaahinta u sheegay in Maxamed Cabdullaahi Farmaajo saacadihii ugu dambeeyay kulamo kala duwan uu la qaatay siyaasiyiin magac leh oo ka soo jeeda Jubbaland gaar ahaan gobolka Gado kuwaas oo qaarkood khilaaf culus uu kala dhaxeeyay intii xilka uu hayay sidoo kale wasiirkii hore ee amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan oo kamid ah siyaasiyiin Muqdisho kaga dhawaaqay isbaaysi karana Axmed Madoobe oo loogu magac daray badbaadada Jubbaland ayaa sheegay in marnaba aysan ogolaan doonin muddo kororsiga uu codeeyay baarlamaanka Jubbaland saaxiibka Axmed Madoobe waxa uu sameeynaya wax hiigsigeena anfacaya maaha qof kasta oo diidan sida uu wax ku wado oo ku nool deegaanada Jubbaland waxaan sii doonaa gabaad uu halgankiisa ku sii wado ayuu Cabdirashiid Janan waxa uu sheegay in qorshaha muddo kororsiga aysan ku qanacsanayn xubnihii codeeyay ee baarlamaanka Jubbaland balse uu ku yimid amar uu bixiyay Axmed Madoobe oo jooga Dubai Imaaraadka Carabta Cabdirashiid Janan oo mar saaxiib dhow la aha Axmed Madoobe hadda waxa uu carabka ku adkeeyay in qorshahoodu uu yahay in Axmed Madoobe uusan wax tala ah mar dambe ku yeelan doorashooyinka Jubbaland sidoo kale madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Jubbaland oo hadda ka tirsan aqalka sare senator Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag ayaa ka mid noqday siyaasiyiinta miisaanka leh ee ka hor yimid qorshaha muddo kororsiga Axmed Madoobe senator Fartaag oo saaxiib dhow la ahaa madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe ayaa cadeeyay in saaxiibkiisa Axmed Madoobe uusan ku raaci doonin qorshihiisa muddo kororsiga Axmedow waxaan saaxiib ku ahayn aniga iyo adiga oo danta Jubbaland waan isla soo halganay waa madaxweynaheegii laakiin tallaabada uu qaaday kuma raaci doono ayuu yiri Fartaag sidoo kale waxa uu sheegay in go'aanka muddo kororsiga aysan waxba ka ogeyn taas bedelkeedana Axmed Madoobe ay kala shaqeynayeen sidii loogu soo gacan gelin lahaa gobolka Gado oo dawladii Farmaajo awood ciidan ay kaga saartay waxa uu carabka ku adkeeyay in dastuurka Soomaaliya iyo kan Jubbaland aysan ogolayn wax muddo kororsiga haddii ay taasi sharci noqonaysana waxa uu sheegay in baarlamaankii 10aad Farmaajo muddo kordhin uu sameeyay balse aysan shaqayn Cabdullaahi Fartaag ayaa sheegay in shalay Axmed Madoobe garbihiisa ay taagnaayeen balse maanta xaaladda sidii hore ay ka duwan tahay isla markaana aysan aqbalayn wax muddo kororsiga in laga sameeyo Jubbaland siyaasiyiin iyo waxgarad miisaan ku leh siyaasadda deegaanada Jubbaland ayaa isbaaysiga ay kaga dhawaaqeen Muqdisho waxay ugu magac dareen badbaadada Jubbaland ana gudoomiyaha isbedel doonka loo doortay Aadan Afey geesta kale Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame waxa uu sheegay in dibadbaxyada ka socda Sri Lanka iyo Sierra Leone ay ku soo socdaan Soomaaliya ergey gaarka ah ee madaxweynaha u qaabilsan abaraha iyo bini'aadanimada ayaa mar kale qayladhan ka muujiyay xaaladda guud ee dalka gaar ahaan abaraha sii baahaya ee ku dhuftay qaybo ka mid ah dalka
cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo sidoo kale ah xildhibaan ayaa shaaca ka qaaday Soomaaliya inay ka dhici karaan dibadbaxyo lamida kuwa ka socda wadamada Sri Lanka iyo Sierra Leone kuwaasoo looga cabanayo raashin la'aanta ka jirta dalalkaasi. sidoo kale waxa uu intaas ku sii daray in xitaa hadda caalamku aysan ka jirin raashin la kala dhoofsado maadaama xaaladdu ay sii adkaanayso sidoo hadalku dhigay ergey gaarka ah ee bini'aadanimada Soomaaliya cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo hadalkiisa sii wata waxa uu shaaca ka qaaday in haatan xaaladda dalka ay marayso meel halis isla markaana loo baahan yahay in si wadajir loo wajaho abaaraha dalka. Soomaaliya ayaa wajahaysa xaaladii ugu adkeyd ee abaaraha waxaana deegaanada qaar laga soo sheegayaa inay jirto macluul aad u daran iyo xaalado dhanka nolosha. dhanka kale golaha wasiirada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxaa maanta u furmay shir weyne xasaasi ah oo loogu magac daray barnaamijka bambaxa ee golaha wasiirada kaasoo qaadan doona muddo 2 cisho. furitaanka shirkan waxaa ka qayb galay ra'iisul wasaaraha, gudoomiyaha golaha shacabka iyo inta badan xubnaha golaha wasiirada cusub. muddada uu socdo shirkan ayaa waxaa diradda lagu saari doonaa howlaha mudnaanta u leh xukuumadda iyo habka loo xoojin karo wada shaqaynta wasaaradaha iyo hay'adaha kala duwan. ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo furay shirkan ayaa dardaaran u jeediyey xubnaha golaha wasiirada Soomaaliya oo ugu baaqay inay la yimaadaan waxqabad muuqda. sidoo kale waxa uu tilmaamay in ka xukuumad ahaan ay mas'uuliyad ka saaran tahay dalka loogana baahan yahay in xubnaha golaha wasiiradu ay la yimaadaan waxqabad iyo howl wanaagsan. waa kulankii labaad oo isugu imaanayaan xubnaha cusub ee golaha wasiirada tan iyo markii la soo dhisay kadibna codka kalsoonidu ay ka heleen xildhibaanada Soomaaliya. geesta kale sidee laba walaalo ah iyo gabar ay shukaansadaan ay u qorsheeyeen dilka wasiirkii cadaaladda Koonfur Galbeed. maxkamadda ciidamada Soomaaliya ayaa xukunaada ku riday walaalo ku eedeysan inay fuliyeen qaraxii lagu dilay wasiirkii cadaaladda maamulka Koonfur Galbeed Sheekh Xasan Ibrahim Lugbuur iyo wiilkiisa Cabdirasaaq Xasan. qaraxii lagu dilay wasiirka waxaa la sheegay inuu qorsheeyay maqane Maxamed Meeris Ibrahim oo ka mid ahaa maxaabiistii ka baxsatay xabsiga weyn ee magaalada Boosaaso markii al-shabaab ay weerareen sanadkii 2021. Ibrahim Meeris Ibrahim oo walaalkiis ahaa ayaa fuliyay qaraxaas ay u qorsheeyeen wasiirkii cadaaladda Koonfur Galbeed Sheekh Xasan Lugbuur oo qaraabo dhow ay ahaayeen marar fara badan uu ka damintay hay'adaha ammaanka oo ku tuhmay shabaabnimo. Ibrahim ayaa maxkamadda ka warqirtay dilka adeerkiis wasiirkii cadaaladda Koonfur Galbeed isagoo sheegay inuu ku badashay $200 oo walaalkiis Maxamed oo qaraxa soo qorsheeyay uu u ballan qaaday. gabar la yiraahdo Falastiin Aadan Shucayb oo Ibrahim uu shukaansan jiray ayaa qayb ka ah kiiskan taasoo wiil aysan garanayn uu soo dhiibay qaraxa intaan lagu aasin xilli habeena banaanka hore ee masaajidka lagu hordilay wasiir Xasan halkaasoo la sii ogaa inuu ku soo tukan doono salaada Jimcaha. wasiirka waxaa la geeriyooday wiil uu dhalay waxaana ku dhaawacmay qaraxaasi dad ay ku jiraan 2 wiil oo kale oo wasiir Xasan uu dhalay waxaana maxkamaddu soo gabagabaysay dhageysiga dacwadii loo haystay eedeysanayaasha. gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida Xasan Cali Nuur Shuute oo kiiskan u tagay magaalada Baydhabo ayaa ku dhawaaqay go'aanka maxkamadda waxaana Ibrahim Meeris oo qaraxa fuliyay iyo Maxamed Meeris oo qaraxa soo qorsheeyay isla markaana maqan lagu xukumay dil toogasho halka Falastiin oo qaraxa soo qaaday 15 sano xabsi lagu xukumay. gudana saaxiibayaal wanaga inta warka channelka dabagalka wararka oo aad ku cusubtahay channelkan ku soo biiro subscribe sar muuqaalka like sar share gareeyo la wadaag saaxiibada aad ku maasan tahay inaad daawato warkan mid ka xigantan ku kulmi doono nabadgelyo.